madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa ka qayb galay munaasabad culus oo ay ku qalin jabinayeen dufcadii afraad ee ka baxda jaamacadda Golis qaybteeda magaalada Burco. Ardaydani qalin jabinaysay oo tiradoodu dhammayd 300 oo arday oo isugu jira hablo iyo wiilal ayaa ku soo labistay huga qalin jabinta ee jaamacadaha waxaana wajigooda ka muuqatay farxadda munaasabada. gudoomiyaha jaamacadda Golis Burco Cabdixakiin Maxamed Cali iyo gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Golis Dr. Siciid Axmed Xasan ayaa ka waramay taariikhda jaamacaddan iyo ardayda ka soo baxday oo ah bay dhaheen kuwa tayo leh. sidaa daraadeed jaamacadda Golis runtii maanta mudane madaxweyne waxa halkan u fadhinaa 9 kuliyadood oo kala duwan oo ka qalin jibinaya jaamacadda Golis Burco. saddexdaas sanadoodna waxaan filayaa inaan mudane madaxweyne aan si wanaagsan u gaari doono. jaamacadda Golis waxay ka mid tahay jaamacadaha aan iska furinin aqalun iska furan oo aan intay filayar kareystaan oran jaamacad baan nahay dhagaysa tacliinta sayniska iyo tiknoolajiyada medicine-ka waa la ogyahay saddex jaamacadood bay King's College ka qaaday. gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa iyaguna soo dhaweeyay ardayda uguna hambeliyay guud ahaanba ardayda qalin jabisay maanta. waan bogaadinaynaa waan u ducaynaynaa waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwii naftooda anfaca oo waalidkooda anfaca oo dalkooda anfaca oo diintoodana aan wax u dhimin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinka yeelo. tacabka la idin galiyay wax fudud ee idin la noqon ardaygu ma aha markuu qalin jabiyo jaamacad ka qalin jabiyo markaba shaqo helo tacliintu wax dhamaada ma aha waad wadan kartaa. wasiir ku-xigeenna iyo wasiiru dowlayaal ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaguna bogaadiyay heerka ay marayso jaamacadda Golis oo ah bay dhaheen mid ku dayasho mudan. shadii albaabkeedii u baad imika ka gashay waa furayaashii digriiga hore waa furayaashii muxuu ahaayay waxbarashada la dugsi hoose ilaa jaamacadda baranaysa waalid baa kugu tabcayay ehelaa kugu tabcaysay waxa loo baahan yahay xilligii aad xilin lahayd. waxaynu nahay ummad soo koraysa qarankeena waynu ognahay dhaqaalihiisa iyo hantidiisa waxaynu ku dadaalaynaa oo aynu Ilaahay tala saaranaynaa in dalkeenu barwaaqo u gaadho. in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku anfaco adduunyo waxa aad u barateen iyo aakhiro wixii aad u barateenba in Ilaahay idinku anfaco ayaan Ilaahay ka baryaynaa. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa ardayda kula dardaarmay inay aaminaan dalkooda iskana ilaaliyaan sibir dhaqaaqa tahriibta. farxad inoo ah ka soo qayb galno xafladda farxadda badan ee qalin jabinta jaamacadda Golis Burco. waxaan marka hore Ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka labaad waxaan hambaliyo iyo duco iyo bogaadimo u dirayaa dhammaan ardayda maanta ka qalin jabisay waxaan leeyahay hambaliyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo ku sugan munaasabadaasi ayaa kaga dhawaaqay in dalku u baahan yahay gurmad qaran oo dhanka abaaraha ah oo xilligan ka taagan xaaladii ugu dareed gobolada bariga. maamulkii gobolka iyo degmada iyo guddigii gurmadka abaaraha heer gobol iyo civil society gobolka warbixintii aan ka dhageystay waxaan ka dhawaaqayaa maanta in dalku u baahan yahay gurmad qaran la galo. gurmad qaran ayaa loo baahan yahay dhibaato xoogaa jirta abaartii sidii la filayo way ka qaran weyn tahay iyadoo hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dhawaaqay waxaan mar labaad adkaynayaa oo ummadda reer Soomaaliland dibadda iyo gudaha ku baaqayaa in degdeg loogu baahan yahay gurmad qaran. gabagabadiina waxaanu dareenkooda wax ka weydiinay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Golis. inay dalkeena soo waajahday abaar u baahan in laga qayb qaato annagu arday ahaan insha Allah maadaama sida horumarinta bulshada aanu baranay waxaanu bal insha Allah ka qayb qaadanaynaa sidii loo badbaadin lahaa dadka loo caawin lahaa dad waxaan maanta hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaa dhammaan cid kasta oo
muddadeedii waxbarashada ayaan waxbaranayay ka soo qayb qaadatay qofka koowaad aan u diraya hambaliyadaasina wuxuu noqonayaa iyadii degmaha Xaaji Sulub Ismaaciil oo cariga Ingiriiska ku nool dhammaan waalidka kalena waan u mahadnaqayaa muddo 16 sano ayaan mustaqbalkayga qayb ka mid ah maanta gacanta ku dhigay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hooyaday aabahay oo muddo dheer iigu soo tabcayay dhammaan faamigaygii hooyaday aabahay adduunka ugu jecelahay faamigayga macallimiintayda waxaan si gaar ah u salaamay academy dhinka jaamacadda oo ahaa fakalkayga dhinkiisa diploma study-ga waxaan hambaliyo u dirayaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halkaasi shahaadooyinkii ku guddoonsiiyay ardayda jaamacadda Golis ayaa waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ka sheegan dalka ee ku suntan horumarka dhanka waxbarashada Absaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco